qaar ka mid ah dadka qaxoontiga Ethiopiaanka ee ku nool magaalada Hargeysa oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkaba ku amaanay sida ay amaankooda u ilaaliyeen muddadii rabshaduhu ay ka jireen deegaamo ka tirsan Ethiopia waxaana ay sheegeen in muddadii ay ku noolaayeen Soomaaliland aan loo geysan wax dhibaato ah maanta waxaan sheeganayaa in nabad ku noolahay dalka Soomaaliland oo waxa dhibaato ay nagu gaaray qalalaasaha dalka Ethiopia ay ka dhacay oo ilaa imika anagu waxa dhibaatona ma arkin oo si nabadgelyo noolahay waxa dhibaatona ma jirto waxa been iyo been abuurta la sheegayna ma arkin dawladana si fiican noo soo dhaweeyay dadkiina si fiican noo soo dhaweeyay waxna madlaqaya dawladda Soomaaliland iyo shaybiga Soomaaliland wanta tabiya keessa walitti bu'insa biya keessa deemuran kan ka'e rakoon baqattoota keenya Soomaaliland keessa irratti uumame tokko yoo jiru imika sida aad ogtiinba waa la soconaa xaaladda ka socota wadanka Ethiopia laakiin asi haatee xagan Soomaaliland waxa dhiboona soo gaadhay wali hadda dadkeena ma soo gaadhay wali ma maqal xaga Djibouti iyo Puntland waanu maqalay laakiin xagan Soomaaliland marka la eego waxa dhiboo dadkeena soo gaadhayna ma jirto laakiin dadka reer Soomaaliland mid baan doonayna inaan u sheego midaan waheed video Uganda ka dhacday waqti dheer ka hor ayaa intii idil la gareeyay af Soomaaliya oo faramo lagu duubay ayaa Facebook la soo dhigay oo leeyahay oromadii baa dadka soo leysay oo dadka dhaamay doon dad baa jiroon ka faa'iideystaan dadka si ku duraan oo mooyaan waxaan doonay dadka Soomaaliland tan ina gartaan video la sameeyo editing lagu sameeyo Facebook la soo dhigo waa video dhowr sano ka hor 5 sano ka hor ku dhacay wadanka Rwanda ku dhacday ayaheed oo la yaqaano anigan halkan idin kala hadlay laftarkayga muddo dhowr 10 sano wax ka badan ayaan Soomaaliland joogay aabay baa qaxootiya dadka Soomaaliland arurta Soomaaliland wax baan la bartay haddana imika aan joogo arday jaamacad kamid ayaan ahay oo jaamacadda Admas dhigta ardayda Soomaaliland isku kursi baan fadhiisanaa waan wada cunaa waan wada cabnaa just waa like brothers ayaan wada noolahay wax dhiba ah maanta aan nala kulmayso oo aan arkay totally ma jirto marka waxaan doonayaa inaan dad kasta ama Oromahaado ama Soomaaliyahaado ama any other Ethiopian ha noqdo in arintan jijiga ka dhacday daraadii arinta loo qasin dadku waa walaalo ha wada noolaadaan waa ha wada shaqaystaan looma baahno in wax yar daraadii la isku diriro oo la isnaco ማንኛውም የሶማሊላንድ ኖሮች የሶማሊላንድ ስደተኛ እዚህ ሀገር የምትኖሩ ስደተኞች ምንም ችግር እንደሌለባቸው በዚህ ረብሻ በኦሮሚያ በክልል 5 ላይ የተፈጠረው ረብሻ እዚህ ሀገር ላይ ምንም ችግር እንዳላመጣ የሶማሊላንድ ሰው ህዝብ ችግር እንዲያደርሱ እንዳልሆነ ሐሰን ገላይድ ወረከ ሆን ኬብል ሀርገይሳ